kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan rabaa inaan kula wadaago xog ku saabsan halkii ay ku dambeeyeen diyaaradihii duqeymaha ahaa oo ay lahayd dowladda Soomaaliya oo magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga lagu soo iibiyay oo Muqdisho yaala iyagoo caafimaad qaba oo shaqeyn kara laakiin ishaysi iyo duruufo jira awgeed ay u xayireen wasaaraddii gaashaandhigga ay soo iibsatayna waa laga wareejiyay waxaan kula wadaagayaa xog dhameystiran oo arrintaasi ku saabsan iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo xoog leh oo militariga Soomaaliyeed ay wajahayaan taasoo sabab u noqotay khasaaraha ciidanka soo gaaray iyo guuldarooyinka kale ee sida xalka loogu heli karo arrintaas haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir muuqaalkana sii shirgaray aragtidaada ka dhiibo sidee arrintan loo xallin karaa maxaana la gudboon madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha militariga Soomaaliya sidaad ogtihiin dhawaan dowladda Soomaaliya waxay soo iibsatay laba diyaaradood oo casri ah oo dalka Turkiga laga keenay oo lacag ay dowladda Soomaaliya leedahay lagu soo iibiyo kuna deeqday dowladda waddanka Qatar diyaaradahaas oo lagu magacaabo Akinji waa nooc casri ah oo dagaal laakiin waxaan xog ku helnay diyaaradahaas oo markii hore loo keenay inay ka qayb qaataan howlgallada dagaalka ah ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab inay howlgal ku yihiin magaalada Muqdisho iyagoo caafimaad qaba wax cilad aysan haysanin dhibaatooyin hortaagan aysan jirin waxaan ogaanay laba sabab oo keentay diyaaradahaas iyo kuwa kale ee duqeymahaba in la waayo arrinta koowaad ama labada qodob waxay hoos imaanayaan khilaaf iyo ishaysi weli ka dhex taagan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo wasiirka xilka laga qaaday Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo kala dhaxeeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raagi saameyntiisa ayaana weli wasaaradda gaashaandhigga ka jirta maadaama uu yahay shakhsi aad ugu dhow dowladda Turkiga malafka Turkigana oo isaga weli gacanta ku hayo xogta aan helnay waxay tilmaamaysaa diyaaradahaas oo magaca wasaaradda gaashaandhigga iyo xoogga dalka Soomaaliyeed lagu soo iibiyay ku diiwaan gashan dalka yaala marka ugu horeyso inaysan maamulin military oo la hooskeeyay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyadoo wasiirkii gaashaandhigga xilka laga qaadayna arrintaas oo ka shaqeeyay sabab la xiriirta inuu diidanaa in wasaaradda gaashaandhigga ay maamusho taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna oo helo dagaalkaasina looga qayb qaato maadaama ay ishayaan wasiirka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Oduwa hay'adda nabad sugidda ayaa maamusha laakiin markii la raadiyo oo la baadi goobo waxay militarigu ay ku cabanayaan garaan saraakiisha ugu sareysa inay jiraan hagardaamooyin siyaasadeed oo markii hore looga leexiyay militariga hay'adaasna loo hoosgeeyay oo uu ka dambeeyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga oo malafka Turkiga weli isaga gacanta ku haya maasha Allah maanta waxaan soo booqday beerta Dar es Salaam waa meel dalxiiska ku fiican cadceedii baan halka ku haynaa biyi bay leedahay cagaarkii xayawaanaadkii baa halka ku nool fardale maxaa ku yiraahdaayay kuwa wax cuna hilibka cuna leh xataa aan cagaarka lahayn maxaa ku yiraahdaa libaax leh yaxaas leh dhurwaale waxyaabo badan baa halka yaala marka waa beer runtii anu 7 dal baan dalxiis ku tagay waa la socotaa in alla waxsiya ahay maalto waa tagay Dubai waa tagay Dooxa waa tagay Nairobi Istanbul halka meel loo dhigo wallahi ma arkin waxaa loogu cudur daartaa inay roob jiraan in cirka daruuro qariyeen in diyaaraduhu shaqeyn karin in amar loo baahan yahay silsilad dheer ayay noqotay iyadoo xaalado emergency ah ama degdeg ah lagu jiro in la helo diyaaradihii meel kale ayaa laga maamulaa duruufo badan ayaana lagu geedaamay waana mid ka mid ah sababihii keenay in duqeymihii diyaaradaha in muddo ahba aan la arkin iyadoo diyaarada ee dowladda Soomaaliyeed ay leedahay oo gantaaladii ku rakaban yihiin oo howlgali kara oo bayloodadii yaalaan ama bayloodadii wadi lahaa ay joogaan aysan shaqeynin waa warkii kooban siyaasado isdiidan iyo sidoo kale wasiirkii gaashaandhiggii oo hore Cabduqaadir Maxamed Nuur oo weli saameyn ku leh gaashaandhiggii oo malafkii Turkiga hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna dhegta oo wax ku maqlan noqday isagii oo la dagaalsan taliyaha militariga horena isku dagaalsanaayeen ayaa arrintaasi ka socolaada arrinta labaad oo dhibaatada ah ee taagan waxa weeye Oduwa waxa uu waayay mid ka mid ah raggii ugu kalsoonida badnaa oo isku tababar ahaayeen isku kuliyad ahaayeen saaxiibo ahaayeen qof ka mid ah dadkii ugu kalsoonida badnaa ee howlgallada qaybta ka ahaa ayaa intii uu ku maqnaa aadayabaal xilkii laga qaaday waxaan arrintaasi ka shaqeeyay wasiirkii hore ee gaashaandhigga nin kale oo in adeerkiis ah ayaana loo dhiibay ninka xilka laga qaaday waxaa lagu magacaabaa Cali Aadan waxa uu ahaa hoggaanka howlgallada ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay isku kuliyad ahaayeen taliyo Oduwa wuxuu tababar ku soo qaatay meelo kala duwan oo xataa Talyaaniga ay ka mid tahay wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii howlgalka xooggiisa gacanta ku hayay howlgelinta taliyihina ay ugu kalsoonida badnaa isku qanacsanaayeen wada shaqeynna ka dhaxaysay
حتى اسكو قبيلة يسان هاين لكن أي هاين رج اسكو كلية دجالك أي كجو أنت هاي اسكو لجن نقول ملتري الصوماليين هو لبضن وكمده إسكاكاشدين وحلو بدلين نكله أو قرابيهن وزير مدح نفرن أما وزير كي هو رأي حركة لجا قاضي لكن هذا وزارة الدكتها يجاديك بدل لو ريجيم إن قرابيهن ويصير جيست أيام ماشي لجي أيدينا تعسو حكنتي إن وليدنا الأدواء حب بدن وزارة الجاشان دي جوده هذه إتكسر جدا ورح جوجو أو إسهيان وأنا وزيركم بحيي isagoo aan wasaaradii hadda wali wasiirka ahayn taliyii xooggan oo san ogeyn inay wali shaqeynayaan iyo madaxweynihii oo aan wali u madax banaynin taliyaha militariga Soomaaliya howlgallada iyo dagaalka iyo hogaaminta ciidamada sababtoo san ugu madax banay waxa weeye maadaama howlgallada Soomaaliya ee dagaalada waxa gacanta ku haya ama taageerada ugu badan laga sugayo oo Turkiga yahay malafkii Turkigan oo gacanta ku haya madaxana furan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu noqotay qofka ugu dhow wax u sheega wax ka maqlo Turkida kala hadlo xiriiriya wasiirka hore gaashaandhig oo hadda wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa wali halkaas ku xoogan saameyn ku leh ciidamadii iyo howlgalladiina waxa lagu eedeynaa inuu caqabad ku yahay iyo dhabar jibin xoog leh oo ku hayo iyadoo intaas oo duruufaha oo dhan loo marayo khilaafka isaga iyo odawaa ka dhaxeeyo ujeedaduna ay tahay in howlgalka lagu soo fashilmo taliyaha militariga la eedeeyo xilka laga qaado nin aan mas'uuliyadda gudan kara noqdo isagiina wuxuu ku dhibaataysan yahay in uusan ilaa hadda go'aan qaadanin oo uusan meel la soo istaageen in loo madax banneeyo howlgallada iyo guud ahaan militariga Soomaaliyeed oosan madaxweynuhu kala hadlin ma naqaan sababta laakiin dadka qaar waxay sheegayaan odawaa inuusan ahayn nin cadkiisa goosan kara laakiin uu yahay nin dagaal oo qori qaata oo furinta taga oo aan isla weynin oo ciidamada ku dhex jira oo hogaamin dagaal ku wanaagsan laakiin hoggaanka kale oo maamulka oo xogaa ku jira ayaha lagu eedeeyaa waxa kale oo odawaa lagu eedeeyaa inuusan madaxweynaha inta u tago sida ay wax yihiin uusan kala hadli karin ayadana waa dhibaatooyin kale ee ninkaas haysta sidaan xukuman laakiin si guudba isjijiidkaas iyo loolankaas waxay sabab u noqotay dhimashada dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxay sabab u noqotay deegaano badan in laga baxo waxay sabab u noqotay dalkii inuu galo xaalad amni oo crisis ah oo qalqal ah waxay sabab u noqotay adduunyada inay isweydiinayaan Soomaaliya mustaqbalkeeda muxuu ku dambeynaya waxa kale oo intaas hadii ay taagan tahay madaxweynuhu oo isagana haleeli laaya inuu isweydiiyo maxaa dhibaato u jira kusoo dhawow Somali Sudanes Specialist Hospital oo ku guuleystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa isbitaalka ka howlgala 125 dhakhtar oo 30 kamid ah yihiin takhasusi oo aqoon khibrad iyo takhasus u leh daweynta iyo qalliimada casriga kombiyuutarka ur ku jirta CT scan iyo MRI waxa isbitaalka kugu diyaarsan mashiinka kaliyaha lagu dhaqo iyo qalab casri ah oo lagu baaro xididada halbowlayaasha iyo wadnaha laguna furo xididada xirma isbitaalka takhasusiga ah ee Somali Sudanes maxay tahay odawaa inuu xaq u leeyahay inuu maamulo wasiirka gaashaandhigga waa wasiirkii hore ee gaashaandhiggana muxuu xaq u leeyahay wasiirka cusub ee hadda jooga ee gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Jibriilna muxuu xaq u leeyahay madaxweynihii isagana inuu garti kala gooyo wixii ishaysi ah ama uu xalliyo ama uu shuruuc kala maamulo isagana waa haleelaya maalina odawaa la hadla maalina wasiirka cusub ee gaashaandhigga maalina wasiirkii saaxiibkiis ahaa oo malafyo badan u hayo dalka Turkiga ah Turkidiina janalka ay soo maraan oo ninkan yaa ugu kalsoonid badaya caqabadahaas waxay sabab u noqotay guuldarooyinka ciidanka waxay sabab u noqotay shabaab inay ku dhiiradaan inay beebayaal ayagoo wata xarumaha ciidamada galaan oo xabada karin ayagoo wata baabuur dhishiika ku xiran yahay inay xarumaha ciidamada weeraraan ayagoo wata cabdibiliyaal ayagoo wata gaadiid kale oo dagaal ciidamada ku rarayaan inay dagaaladii shabaab ay soo qaadayaan marka dhibaatooyinkaas jiro ciidamadii Soomaaliyeed wajahayaan gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed warkan xasaasiyad badan oo dhali doona laakiin waxa xaqiiqada gaashaandhigga Soomaaliya ka jirto inta xoogaal ku ah walaa ciidamaduna og yihiin aad u maasantiin aragtidaada qaybta seefaalada noo rab si arinta xal loogu heli karaa maxay tahay inuu odawaa sameeyo wasiirka gaadiidka dekedaha oo Turkiga ku xiran maxay tahay isaga inuu sameeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed maxaa la gudboon qaybta hoose ee faalada aragtada noo rab muuqaalkana si shargaray haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir waxaan ku haynaa sheekooyin kale oo arrimaha Soomaaliya